kooxda Arsenal oo wacdar ka dhigtay suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda iyo sidoo kale wili Arsenal oo coachkeeda Arteta oo sheegay in uu wili uu suuqa inta xirmanin oo ciyaaryahanno badan uu soo wado iyo sidoo kale xaaladda Isak iyo Liverpool iyo Newcastle oo iidane oo warkeeda cadeysatay iyo wararkii u dambeeyay ee ciyaaraha ee suuqa kala iibsiga iyo falaqeynto dhameystiran ayaad muuqaalkan ku daawan doontaan fadlan haddii aad channelka cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa like noo saarto subscribe noo saaro haddii nala joogtana ku mahadsantahay aan ku bilaabno wararkeena ugu xiisaha badan ee maanta kooxda Arsenal ayaa la soo wareegtay ciyaaryahanka Crystal Palace ee weerarka ugu ciyaar ee Eze oo 68 milyan Arsenal 60 milyan ku soo iibsatay halka 8 milyan hadduu wixii oo wax soo saar u sameeyo oo addis on ayaa lahaa oo faa'iidadaas lagu dari doono hadduu uu si fiican uu sidii loo baahnay uu noqdo ayaa 8 milyan ee Arsenal loo tiradaal dama gunooyinkaas ay ku dari doontaa sidoo kale hadda Arsenal Arteta ayaa lagu wareystay xaaladda Eze inay la soo wareegeen asagana wuxuu ku jawaabay wuxuu dhahay ciyaaryahanada aan haysanin ilaa hadda kama hadli karo kuwa hadda aan joogay ka hadli kara macnaha wuxuu ula jeedaa macnaha waxa waaye warka wili ma cado marka alla marka ciyaaryahanka aan gacanta ku dhigno la noqon inkastoo Arsenal ay gabadho u marayso oo la rajeynayo isla maanta la rajeynayo inuu caafimaad u maro ayaa haddana Arteta ku yar jaabsaday inuu arintaas wax ka dhaho haddana laakiin wuxuu dhahay sidoo kale wuxuu beeniyay arinta lamada maalmahan la isla dhaxmaray ee social media ee ah in Eze uu buuxinayo poster Kai Havertz asayna wuxuu sheegay carab wuxuu ku adkaystay in Kai Havertz dhaawiciisa oo ciyaartan Leeds United ee Toronto Emirates Stadium halkaas kulan uu maqnaanayo laakiin balse xaaladiisa guud ee caafimaadka ilaa haddana war kuma soo saarin wuxuu dhahay waa la igi doona xaaladiisa ayaa la marka intii muddo uu garoomada ka maqnaan doono iyo inay kale laakiin muu xaqiijinin balse wuxuu dhahay oo kaliya ciyaarta Sabtida ayuu maqnaanaya marka sidaas ay tahay Arteta wuxuu dhahay wuxuu beeniyay in uu Eze uu buuxinayo posti oo Havertz balse uu yahay weeryahan ay u baahnayeen ee dhanka weerarka labada garbood sida Martinelli iyo Saka labada maadaama Saka ay ciyaaryahanka hore loo soo buuxsay booskiisa laakiin hadda Martinelli wuxuu rabaa Arteta shaxdiisa mar alla markii Martinelli ay ka jaban tahay ciyaarihiisa inuu Eze ku soo tuuro Eze hata wuxuu qaban karaa number 10 sidoo kale 9 Ben hata waa la ciyaarsiin karaa waa nin xoogan difaacyadana qalqaliyo oo darbo leh oo sidoo kale cariiris badan leh iyo maadaama khibrad uu leeyahay horyaalka Premier League Arsenal waxay hadda u badan tahay Paul Morrison ee wariyaha caanka ah wuxuu sheegay in Arsenal uu ku xoojin doono weerarka ku guuleysiga Premier League ee muddo badan Arsenal sugayeen tan iyo 2004 Arsenal ku qaadan unbeaten ayaa haddana wuxuu carab ku adkaystay wariyahan wuxuu sheegay inuu Eze ka caawin doono Arsenal inay ku guuleysto horyaalka ee sanadkan xigo sanadkan hadda lagu jiro 2025 ilaa 2026 sidoo kale haddii aan u leexdo wararkaas ee Liverpool ayaa iidan runta loo sheegay sidoo kale Newcastle iyo Liverpool ayaa wili isku dhigan halka Isak uu ciyaaraha uu dhahay maadaama ay Liverpool laga iibin waayo wuxuu leeyahay ma ciyaarayo ma imaanayo ciyaaraha tartanka traininga ama tababarka maska soo xaadirayo uu leeyahay markii ilaa hadda asagana waa uu is adkeynaya laakiin intastoo ciyaaryahanno badan iyo wariyaal badan ay ku eedeynayeen Isak dhaqan xumada ku dhacay sida wariyahankii hore ee Manchester United iyo xulka Ingiriiska ee Wayne Rooney ayaa sheegay wuxuu dhahay Isak waa nin doqon ah sababta tahay hadduu uu rabo inuu baxo nidaam ayaa jiro meesha shaqo ayuu umaado inuu shaqadiisa ilaalsada maadaama uu contract ugu saxiixay Newcastle United ee muddo u artay hadda go'aanta waxay ku xirantay oo kaliya Newcastle sidoo kale ciyaaryahankii hore ee istaraatijiga u dheeli jiray xulka England iyo sidoo kale Newcastle oo gool dhaliyahooda hore ee Alan Shearer asayna wuxuu ku sheegay Isak waa nin doqon ayuu dhahay maadaama uu contract badan uu saxiixay Newcastle oo qodobadiisan uusan ku darin haddii ay lacag macquul galateen in la iibiyo maadaama go'aantiisu rudar hadda laakiin balse go'aantu waxay u taalaan Newcastle United inkastoo coachkeeda asayna uu ka gaabsaday markii arrimahaas la weydiiyay balse xaaladda Isak ayaa wali cakran tahay halka ay Liverpool idana ciyaaryahankeeda heero ay difaaca u dheer jiray Carragher oo runtii sheegay wuxuu dhahay
Liverpool waa inay waqtiga iskaga dhuminin Isak waa inay bedelkiisii mar hore inay raadsadaan ayaa la rabay haday waayeen laakiin balse inay waqti iskaga dhumiyaan maahan maadaama uu Mohamed Salah oo bisha December bisha 12aad ama dabayaaqada sanadkan uu ay doono in Africa Cup of Nation maadaama ay hadda Liverpool saddex weeraryahan oo kaliya ay haystaan labada garbood ee ka dheeli doonaan sidoo kale Mohamed Salah iyo Drop iyo sidoo kale Eteta sidoo kale saddexdaas weerar bas ay haystaan sidoo kale waxa la rajeynayaa ciyaaraha kale marka waxay leeyihiin waa inay sidoo dhaqsiyaha badan waa inay istreet hal ama labo oo tariga ayaa sheegay wuxuu hal iyo labo inay treensadaan u istreetahaas waa inay istreet soo buuxsadaan maadaama dabayaaqada sanadkan uu sii dhamaanay maadaama hal isbuuc ka haray suuqa kale iibsiga ciyaartoyda waqtiga uu Liverpool aad ay u yaryahay uu sheegay sidoo kale wararka kale ciyaaraha maantana Sabtida ayaa dheeli doonta Arsenal iyo Leeds United idan insha Allah ciyaaraha soo falqayn doona halka Chelsea